dunidan casriga ah dadka ku nool haatan waxay ku haminayaan in ay dalxiis ay u tagaan hawada sare dhawaana la filayo in arintaasi ay bilaabato sidoo kaleeto ay sahlan tahay in haatan qof waliba oo dunida ku nool uu dalxiis tagi karo goob walba oo dhulka kamid ah u baahdo una booqan karo goobaha taariikhiga ah balse haatan waxa jira goobo tiro kooban oo aad u macaan jawi fiican lagu qaadan karo dalxiiska balse ka caagan dalxiiska waxa aan halkan idinku soo gudbin doonaa ilaa iyo 7 goobood oo aan dadka loo ogolayn inay booqdaan ayna ugu wacan tahay khatarta amni ee ka jirta halkaasi. jasiiradda masaska ee dalka Brazil. jasiiradda Ilha de Queimada Grande ee dalka Brazil waxay ka mid tahay goobaha ka caagan ee aan dadka loo ogolayn in ay booqdaan. waa goob halis ah oo ay adag tahay in qofkii tagaa uu ka soo noqdo isaga oo nabad qaba. jasiiraddan ayaa waxa ku nool masaska ugu badan adduunka. inta la og yahay waxa la xaqiijiyay in mitir walba oo dhulka jasiiraddaasi uu jiifo mas, waxaana la sheegay in ay yihiin masas marka uu qofku u arko argagax gelin kara waxyeelana gaarsiin kara bini'aadamka booqdo goobahaasi. waana sababta keentay in jasiiraddani lagu naanayso jasiiradda masaska. masaskaasi ku nool jasiiradda waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin masaska dunida aynu ku noolnahay ugu khatarta badan, waxaana ka mid ah masaska nooca candhuufta tuura kuwaasi oo ah kuwa suntoodu ay halis tahay. dowladda Brazil ayaa xirtay jasiiraddaasi kana mamnuucday in dadka dalkaasi u dhashay iyo sidoo kale kuwa soo booqdaba dalkaasi ee u dalxiis taga in ay goobtani ay booqdaan. khubaro arrimaha deegaanka oo ka socday jaamacad ku taala dalka Australia oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay in qaybta jasiiraddani ay ku taalo ay tahay meel aad u halis badan noloshuna aysan ka suura gelayn. jasiiraddan ayaa waxa ay dhanka xeebta ah ay kaga beegan tahay magaalada São Paulo ee caasimadda u ah dalka Brazil. goobta labaad, kaydka qarsoon ee kaniisadda Vaticanka. kaydka qarsoon ee kaniisadda Vaticanka ee dalka Talyaaniga waa mid ka mid ah goobaha aan dadka loo ogolayn in ay booqdaan. kaydkan oo sida la sheegay ku dhex yaalo dhismo weyn ayaa la aaminsan yahay in halkaasi ay ku kaydsan yihiin dukumiintiyo muhiim ah oo taariikhi ah. waxyaabaha la sheegay in halkaasi ay ku kaydsan yihiin waxaa ka mid ah waraaqo ay isweydaarsan jireen Vatikaankii horeeto iyo sidoo kale dadkii caanka ahaa ee dunidan aynu ku noolnahay soo maray, kuwaasoo ay qayb ka yihiin boqoraddii ugu horreysay ee Ingiriiska Adolf Hitler iyo sidoo kale mas'uuliyiin dunida saameyn kaga tagay. xogtaasi ayaa la sheegay in ay tahay mid u qaas ah baadariga Katoliga, waxayna tahay goobtan mid aanan loo ogolayn in ay booqdaan dadyowga caalamka ee Talyaaniga u dalxiis taga. cilmi baarayaasha arrimaha sayniska ayaa la sheegay in ay yihiin dadka kaliya ee dalban kara ogolaansho ay ku galaan goobtan. haddiise loo ogolaado waxay u dhaqmayaan shuruudo adag oo goobta u degsan, iyadoo ay ka xadidan tahay in goobaha qaar oo ka mid ah ay tagaan meeshan. kaydka qarsoon ee Vaticanka ayaa sidoo kaleeto ah meel lagu keydiyey xog badan oo la xiriirta Katoliga iyo sidoo kale dadkii saameynta lahaa ee noolaa qarnigii 8aad iyo wixii ka horreeyay. inta badan macluumaadkan ayaa ku kaydsan baqaaro dhulka hoostiisa ah, waxa ayna ku fadhisaa goobtan dhul cabirkiisu uu gaarayo 85 kilomitir. goobta saddexaad, xarunta lagu keydiyo miraha dalagyada ku beeran ee adduunka. waa sanduuq aad u weyn oo u samaysan sida qaboojiyaha laguna keydiyo miraha dalagyada adduunka laga beerto. sanduuqani waxa uu yaalaa gudaha dalka Norway, waxaana hirgelisay dowladda dalkaasi. waana goob lagu ilaaliyo miraha si haddii ay musiibo bini'aadanimo ay dhacdo iyo sidoo kale duufaan baahan oo galaafata beeraha adduunka loo helo miro la beerto. wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Britain ayaa ku soo waramay in sanduuqani uu yaalo jasiirad ku taala gudaha dalka Norway ay ku kaydsan yihiin dhammaan dalagyada dhul waliba oo caalamka ka mid ah lagu beero. waxa laga dhisay qalab ay adag tahay in ay biyo galaan ama sidoo kale ay dhibaato bannaanka ah ay gudaha u soo gasho goobta lagu geediyey mirahan. sanduuqan ayaa u nashqadaysan qaab aysan suuragal ahayn in uu si sahlan u dumo ama si sahlan ay waxyeello u gaarto. miraha halkan lagu beeray ayaana ah kuwa laga soo gala aruuriye dhammaan daafaha caalamkan aynu ku noolnahay, waana taasi keentay in dadka aanan loo ogolaanin in ay booqdaan sanduuqan goobta uu yaallo. goobta afraad, jasiiradda xabaasha ee dalka Talyaaniga. Bofoglia waa jasiirad yar oo ku taala dalka Talyaaniga una dhaxaysa xeebaha magaalooyinka
Phoenicia iyo sidoo kale Lido. Goobtan waxay horay u ahayd goob lagu karantiilo dadka qaba cudurka bubonic ee ka dhasha bakteeriyada, waxaana mar la sheegay in lagu karantiilay in ka badan 160,000 oo qof oo qabay cudurkaasi, kuwaasi oo markii dambeeto qaar badan oo ka mid ah ay u dhinteen cudurka. Warbixinada qaar ayaa waxay sheegayaan in ka badan 50% carrada dhulka jasiiradaasi ay tahay haraadiga jirka bini'aadamka, maadaama dadkii u dhintay cudurkaasi meydadkooda ay halkaasi ay ku qurmeen. Wargeyska Daily Mail ee dalka Britain ka soo baxa ayaa ku soo warramay in jasiiradani muddo haatan laga joogo 70 sano ay ahayd goob gumaystihii Talyaaniga u ahayd xarun lagu hayo dadka qaba xanuunka dhimirka, waxayna taasi keentay in dowladda Talyaaniga ay markii dambeeto ee jasiiradani ay xirto, halkaasi oo laga mamnuucay in dadku ay booqdaan. Goobta shanaad, qolka 39aad ee Kuuriyada Waqooyi. Dalka Kuuriyada Waqooyi oo lagu tilmaamay in uu yahay dal go'doon ah kana go'an dunida inteeda kaleeto, ayaa waxay adag tahay in wax badan laga ogaado waxa gudaha dalkaasi ka socda. Dalkan oo sidiisaba ay adag tahay in wax laga ogaado madaxda dalkaasi iyo waxyaabaha ay qabtaan, ayaa waxa ku yaala qol lagu magacaabo 39. Waxaa la sheegay in uu yahay qol aanan cidna loo ogolayn in ay gudaha u gasho. Wax badan lagama oga qolkan oo ku yaala magaalada Pyongyang, hase yeeshee dad aqoon u leh ama la soo shaqeeyay xukuumadihii dalkaasi ka jiray waxay sheegeen in qolkaasi uu yahay goob si gaar ah ay ugu kulmaan hogaamiyaha waddankaasi iyo saraakiisha militariga. Ri Jong oo ah sargaal horey uga tirsanaa xukuumadda Pyongyang oo u warramay telefishin laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa sheegay in qolkani lagu qabto shirarka gaarka ah ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kaleeto saraakiisha sarsare ee dalkaasi. Qolkan ayaa sidoo kale la sheegaa in lagu sameeyo lacagta laga isticmaalo gudaha dalka Kuuriyada Waqooyi. Goobta lixaad, aagga 51aad ee dalka Mareykanka. Aagga 51aad ee ciidamada cirka ee dalka Mareykanka waa goob caan ka ah dalka Mareykanka, waxaana loo yaqaanaa Area 51. Hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ayaa markii ugu horeysay qirtay in goobtaasi ay tahay goob jirta sanadii 2013. Inta badan goobtan kama soo muuqato qariirada goobaha dalka Mareykanka. Waxaa la aaminsan yahay in sidaasi loo sameeyay sababo amni awgood. Goobtani oo qiyaastii 170 kiiloomitir u jirta Las Vegas ayaa sanadii 1958 waxa ay hay'adda atoobikada Mareykanka ay ka saartay goobaha dadweynaha ay tagi karaan. Waxaa gidaarka goobtani ku hareeraysan ciidamo hubaysan, sidoo kale waxaa bataatan baxiran in diyaaraduhu ay dul hayaabaan goobtan. Way adag tahay in la ogaado waxa ka dhex socda xarunta Area 51, dadkuna marnaba looma ogola in ay gudaha u galaan oo waxa gidaarka ku dhagan koronto dili karta qof kasta iyo sidoo kale shay walba oo goobta u soo dhawaada. Xarunta waxay u dhowdahay saldhigga militariga ee Nevada oo ah meel lagu tijaabiyo hubka nuclear-ka ee Mareykanka. Intii u dhaxaysay sanadihii 1950 ilaa 1990 waxay ku fadhidaa goobtani dhul 3 milyan oo hektar gaaraya. Goobta toddobaad ee ugu dambaysa, jasiiradda dadka go'doonsan ee dalka India. Jasiiradda Sentinel ee ku taalla waqooyiga dalka India waa hoyga dadka asal ahaan loogu yimid dalkaasi, kuwaasi oo qarniyo badan ku noolaa halkaas. Dadkan ma ahan dad doonaya in ay la macaamilaan ama wax xiriir ah ay la sameeyaan dadka kaleeto ee caalamka ku nool. Dowladda India ayaa joojisay dhammaan isku day walba oo lagu tagi karo goobtaasi kadib markii ay ogaatay in qatar ay dadkani ay ka soo gaari karto, waxaana dowladdu ay samaysay xayndaab lama gudbaan ah halkaasi oo aan loo ogolaanaynin in dadka dalxiisayaasha ah ay dadkaasi kaleeto ay u tagaan. Sanadii 2006 kalluumaysato isku dayday in ay gudaha u galaan jasiiradaasi ayaa gebi ahaantoodba la dilay. Sidoo kaleeto dalxiise u dhashay dalka Mareykanka oo isku dayay in uu gudaha u galo ayay dileen dadka ku nool goobtaasi, waana goob ka caagan in loo dalxiis tago. Dad badan oo isku dayay in ay booqdaan goobtaasi ayaa waxaa ka hor imaaday dadka degan goobtaasi, waana goob ka caagan in la galo. Waxa ayna qayb ka tahay goobaha aanan loo dalxiis tagi karin ama loo ogolayn in ay dad shisheeye ay tagaan.